haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah, fiidiyowan ku daran yahay fadlan ha fiirso. Sheekadan waxay ku dhacday nin magaciisa la yiraahdo Stones maalin kasta oo Jimcada baxayso wuxuu aadi jiray kalaabka. Maalin asigoo u socda kalaabka ayaa wuxuu arkay Stones kalaab agtiisa laga furay oo kii hore ka dhow. Stones wuxuu go'aansaday in uu kalaabkan fiiriyo haddii uu ka helana uu joogo. Markii uu soo galay kalaabka wuxuu ku arkay kaliya 5 qofood oo xiran dharka Halloween-ka. 5 nin oo Stones arkay mid kasta wuxuu xirnaa dhar bombila ah. Sidoo kale dhulka waxa uu yaalay bocor guduud oo nalka dhex shidan yahay qaabka wejiga kalena u samaysan. Run ahaantii Stones dadkan wuu la yaabanaa sababtoo ah 3 maalin ka hor ayay ahayd Halloween Day. Markii uu meesha soo galnay 5 qof oo meesha ku jirtay dhammaantooda asiga ay soo wada fiiriyeen. Kadib Stones meesha qamriga lagu cabo markuu imaaday wuxuu ku arkay nin wejiga u daboolan yahay. Ninkii wejiga u daboolnaa ayaa dhahay hilib miyaa ku siiyaa mise dhiig bini'aadan. Stones wuu la yaabay kaftan ayuuna u maleynayay wuxuu ku dhahay dhiig bini'aadan isii. Kadib Stones waxaa loo soo qabtay dhalo qamri oo ku jiro wax sida dhiig oo kale u gaduudan. Galaas ayaan loogu shubay. Sidoo kalena katiinad sida sixirkii oo kale ayaa dhiigii galaas ku jiray loo dhex geliyay 3 jeer kadibna dhiigii gaduudna wuxuu isku bedelay madow. Markastoo Stones walwal galo wuxuu ku fikirayay inay rabaan dadkan inay ka cabsiyaan kaliya. Kadib Stones galaaskii ayuu qabtay asigoo fikiraya misna cabsanaya ayuu cabay wixii gaduudna oo kadibna madow isku bedelay. Kadib Stones wuu warwareeray. Kadib waiterkii ayuu lacagta u soo bixiyay meeshina uu iskaga dhaqaaqay asigoo warwareeraya. Stones marka ka dambayso awoodiisa way sii daciifaysay. Kadib wuxuu dareemay inuu gurigiisa imaaday. Kadibna uu soo galay wuxuu maqlayay qof dhoola cadeynaya oo kale ama qoslaya oo kale. Kadib Stones hal mar ayuu indhaha isku qabtay kadibna uu kala furay waxaana ka yaraaday qeyladii iyo sawaxankii uu maqlayay. Albaabkii guriga uu soo xiray. Kadib wuxuu dareemay in uu imaaday guri qaldan gurigana uusan ahayn gurigiisa. Wuxuu isdhahay albaabkiisa ka fur ee dib u laabo laakiin albaabkii wuu furmi waayay. Kadib Stones wuxuu isdhahay albaabku wuxuu ku jabay laakiin wuxuu maqlay shanqar sida qof soconaya oo kale wuuna istaagay. Isla markiina wuxuu ku fikiray inuu waco booliiska. Laakiin nasiib xumo meesha anteen ma lahayn qofna ma laga wici karo. Kadib wuxuu go'aansaday inuu kor fuulo. Insha Allah asxaabta qayb labaad ayay leedahay biri ayaan la soo deynaa. Fadlan ha hilmaamin inaad fiidiyowga like gareyso channelka haddii aad ku cusub tahayna subscribe sar.